فرانسيسكا عمر ما يمغلي كرتا سفيعا وياه عمر وكسود وين يا مركه هوري انت كدب غورمه ايا لغو شيغay in corona virus aad qabto walaal waa dhawahay sida sheegtay aniga ku soo xariiray waxaas tahay bulshada Soomaaliyeed la wadaag cudurkan fayraska ah aadka u faafayo walaal waxa adiga hadda taqriiban wuxuu ahayaa 9 maalmood garad way maxaad isku aragtay 9 maalmood maxaad isku aragtay markii ugu horeysay walaal waxaa isku arkay qunfac ziyaade ah iyo qandho iyo hergab macnaha oo sanka diifka imaanayo iyo hurdada aad igu xumaatay iyo anigoo aad u qandhooday marka isbitaalaan tegey isbitaalka wuxuu yidhi corona ku haayo marka waxay dhaheen waa inaad gurigaada isku karantiishaa aadan ka bixin marka gurigaan deganaha waxay ahayd qolo oo social ah oo gacanta igu haysay marka oo dowladda ah marka af bixi karta malaha la yidhi waa markii layga helay haddana maalmin ku xigay baareen dad badan oo 10 qofood oo ajnabi Soomaali ahna laga helay marka waa la karantiila dad walba waxaa la yidhi gurigiina jooga meesha saaca cuntada lagu keenaa ma lahan bahalkan isbitaal inta lagu seexiyo oo daawooyin lagu siiyo ma jirto laakiin waa inaa gurigaaga joogtaa adiga karantiishaa oo guriga naafadiisa ku dadaashaa marka waxa ugu weyn aan kula soo xiriiray waxa waaye horta bahalkan ilaahay ha ka haayo ummadda Soomaaliyeed marka waxa aslahay dadka Soomaaliyeed waa u imaan doonaa Umar talooyinkaaga laakiin bal si guud uga waran dunidu aad bay uga walacsantaa cudurkan dad badanna waxay u arkaan khatar inuu yahay bal xaaladda iminka aad ku sugan tahay adiga maxaad inooga sheegi kartaa والله أبو هذا هذا وفي عنا الحمد لله قدري وإجا جبتي قفع زيادة هاد حتى طلف مكحل كريم أو كان هاي قفعيga kala goys ma lahayn aad u qufacayna طلف ku halo suurta galeenin marka maanta iyo shalay aad fiicanahay marka xaslahay bulshadaada la wadaag walka cabsiisa markay ziyaada noqday wuxuu dadka galaafsanaya arkaysinta waa dad ah iyo nin iska dadida waa 7 jir waa dadka xoogan sida ay sheegeen ba qolada caafimaadka waa iska dadka galaafsanaya waa dad jiro oo xanuunsan oo marka alxamdulillah aniga waa caafimaad qabaa kale laakiin marka waa laga helay qaadista cabisay waana ma qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee Faransiiska ku nool ayaa tahay cudurkan laga helay mise dad kale oo Soomaaliya qaba cudurkan way jiraan niho aniga inta hadda ka warhaya aniga waayay oo wiil soo wax laga helay laakiin gobol aad iga fogaa la sheegay ana hadda Paris deganahay wiil Soomaaliya oo ku dhacay laakiin wiilkaas waa wiil aad u xanuunsan oo hay waana dhintay asiga inuu geeriyooda la soo sheegay waa nin aad oo wuxuu ahay balwad isticmaal oo balwad jaadheed sida warbixinta aan ku maqlay la soo sheegay marka qof aad u xanuunsan oo hayo sidiisa kala xanuunsanaa laakiin waa yarkaas waa dhintay xanuunkii u dhintaa maqal waa qof Soomaali ah oo cudurkan u geeriyooday miya waa qof Soomaali oo u geeriyooday laakiin asiga waxyaalo kale u dheeraad ahay waana nin weyn oo ahay daa haasna sida maxay kuu sheegeen dhaqaatiirta dawooyin noocee ah ayaad hadda isticmaashaa Cabdullaahi Abu wax daawa markaa weli looma soo saarin laakiin waxaan qofka markuu qandho aad u qandhoodo waa paracetamol inuu guriga u yaalo waaye paracetamolkaas isticmaala qandho jabiye marka paracetamolkaasaan isticmaalaya aniga maalmihii hore aad u qandhaysnaay alxamdulillah haddana waa fiicanahay laakiin gurigaaga waxa ula soo xiriir waxa weyn waxa waaye qofka inuu gurigiisa joogo oo ka bixin oo ilaahay ku xirnaado oo guriga nadaafadiisa ku dadaalo oo wax walba oo tirtiro oo guriga nadaafadiisa ku dadaalo gacmihiisa dhaqo jeermiska waa inaa la dirartaa adiga oo gurigaaga mar walba aniga hadda dhowr waqti buu maalintii waa hagaajistaa wixiga aniga alxamdulillah habaysto marka karantiilka waxa waa inaad gurigaaga ka bixin aan dadka aad u faafinin cudurka dadka kale oo ka fiyow marka intaas leeyahay bal adiga marka hore cudurkan
ma dad kaloo qabo oo la kulanta ayuu kaa soo gaaray oo kugula nool waddanka Faransiiska mise waddan kalaad ka timid oo ka keentay abu aniga Paris aan joogo dhowr bilood kama bixin cudurka inta jiray Paris ma safar ma aadin balaak waxaan ogahay Talyaaniga iyo Ingiriiska waddankan darisiin oo xuduud la leeyihiin marka dadka zaid u soo galayeen kastoo hadda bariyahan la joojiyay marka tareenada waa aniga meesha aan ka tareenadan dadkan ayaad ka fulay shacabka dadweynaha waxaa la leeyahay cudurkan khatartiisu way weyn tahay oo dad badan ayaa u geeriyooday ilaa qofku mararka qaar uu gaarsiiyey xaalad neeftu u qabatimo marka wax astaamaha weli ma isku aragta abu weli astaamahaas iskuma arkin alxamdulilah aniga hadda weli naqaskii uguma dhegin laakiin qof ficiga siyaado u ahaay iyo qandhadeeda iyo sanka oo diifka imaanaya qofka aad u jaraynayo xataa hurdada xataa toos ma ahaanayso qofku kasoo kacaa ma hurdi karo qunfac ziyaada cuntada shayga zaad ma cuni kara xataa inta og tahay imise Soomaali ah oo ku nool Faransiiska ayaa cudurkan laga helay abu aniga kow iyo wiilka aan ku sheegayo nin oo oday ahaa laakiin wuu geeriyooday labadeena qof aan ogahay bis way Soomaaliya cudurkan qofkii ugu horeeyay ayaa laga helay dadkuna aad u walwalayaan Umar maxaad u sheegi lahayd dadka Soomaalida ah talooyinka aad siinaysaa maxay tahay والله وطلده وحاول سيلها dadka inay gurigooda joogaan ay gurigooda ka bixin waraysi waxaan fiirsanaa editor dufle qanalaasi oo leeyahay taqaatiir caalami ah sheegtay walka inuu qoraxda wadamada qoraxda kulul inuu san oo soo ku noolaa karin la sheegay laakiin ilaahay taas ka dhigo laakiin waxaan dadka kula talaa inay gurigooda ka bixin qofkii laga helo waa inuu gurigooda joogaa waa in meel karantiila kaligiis oo ahaada oo san naafadiisana uu ku sii dadaalaa waxaa leeyahay dadka dhalinyarada ah aad uma badna ee cudurkan uu soo rito haddii uu soo ritana markaa u geeriyooda marka arrintaa ma jirtaa waa jirtaa waa tvda waa dhegeystay waxaa waaye qofka difaaca jirkiisii ku xiran tahay qofka inuusan xanuun hore qabin sida sanbabaha beerka iyo waxyaalo badan oosan qabin marka waa alxamdulilah ani intaas maana qabin laakiin waxaan dareemay baalka inuu ahaay takhaatiira iyo meeshaan daktar wuxuusa cadeynina wax cudur beena ma kaa sheegi karo laakiin daktarka asigaa i cadeeyey oo iga baareen aniga qandhada iyo haysay wixii jawaabtina waa isiiyeen isla markii waxay dhaheen ma bixi kartid gurigaaga marka ambalaas ay soo qaaday qoladii socialkii ku soo celisay dhaheen ninkaaga waa soo bixin aniga gurigeyga ma ka bixin intaas marka hadda xaaladii markii hore ee cudurkan uu kugu soo bilowday iyo hadda saad sheegtay farqi ayaa u dhaxeeya ma ku laabatay dhakhtarkii bal haddii cudurkii weli uu ku hayo iyo in kale waa sax su'aal muhiima abu meesha aan deganaha waxay tahay qola social joogo qolada socialka waxay samaysaa waxay leedahay qayb caafimaad ay leedahay qoladaas ay imaado waxdii imaadaa iyo habeenkii qandadeeda inta maraysay la socdaan qandada waxa ugu weyn halkaa lala socon karo waxaa waaye oo dhakhtarkaaga la soconayo waa qandada ku hayso qandadaas ay cabir ka qaadanayaan qandadii markii eber xoogaa hoos usii socda qandadeeda waayahay cumar aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Cumar Macalin oo ah muwaadin Soomaali ah oo qaba xanuunkan coronaviruska oo ku nool waddanka Faransiiska telefoonka ayuu nagala soo xiriiray balse uu talooyin caafimaad u siiyo dadka Soomaalida ah ee la walwalsan sidoo kale Cumar waxa uu inoo sheegay in qof Soomaali ah uu cudurkan ugu geeriyooday waddanka Faransiiska tirada dadka Soomaalida ee cudurkan laga helay ee ku nool dunida dacaladeeda ayaana soo kordhaysa hadba maalinba maalinta ka dambaysa kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada channelkayga Mucjisati fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar siina share garee